بسم الله الرحمن الرحيم waxaan shacabka Soomaaliyeed salaamaya meel kasta ay joogaan waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo kaalintiisa hogaamineed oo maanta runtii go'aan taariikhi ah ku qaatay asaga iyo golihiisa wasiirada oo ay daqar ceebeed oo muddo ku yaalay dadka Soomaaliyeed ka daaweeyeen kaasoo ah go'aankii golihii wasiirada asaga ka horeeyay 25 Agost 2017 ay qaateen ee ahaa in la dhiibay muwaadin halgamaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax laguna tilmaamay jabhadii wadaniga ahayd xoreynta Ogaadenya oo laf argagixisay lagu tilmaamay go'aankaas runtii wuxuu ahaa daqar ceebeed oo muddo ku yaalay dadka Soomaaliyeed oo sharaftooda iyo karaamadooda iyo gobonimadooda lagu dhaawacay dadka Soomaaliyeed markii go'aankaas la gaaray waxay sameeyeen cadaadis noocyo kala duwan oo dibadbax ka mid yahay oo qeeladaan ku jirto oo qoraale ay ka mid yihiin oo ay dacwo ka mid tahay meel kasta ay u istaageen in go'aankaas sharaftooda iyo karaamadooda meel looga dhacay laga laabto laakiin xukuumaddii iyo hogaankii markaas jiray way ka dhada adeegeen arintaas iyada ah in maanta ayadoon cidna cadaadin ku dhibin daba taagnayn ayaga rabitaankooda uga noqdaan golaha wasiirada iyo hogaamiyo ra'iisul wasaare Xuseen Roble waxaan uga mahad celinaynaa runtii arintaas ayada ah waxaan leenahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa inaan xuso in xaqa muwaadinka Soomaaliyeed ee lagu tuntaa inay tahay arin dastuurka ka soo horjeeda macnaheedu dadnimada ka soo horjeeda diinta islaamka iyo karaamada ummadnimada ka soo horjeeda si kastay u soo dib dhacdo si kastay u daahdo hadii loo halgamo xaqa muwaadinka waa la helayaa dhamaanteen shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta qaybaheeda kala duwan ayaa arintaas ka dhiidiyay ka halgamay way soo daaday laakiin maanta ayay timid sidaas daraadeed waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed xaqiina u halgama xaqa muwaadinka walaalka ah ee lagu xadgudbay hadaad fiirsato oo indhaha ka laabato maalin bay adiga taada ay kugu imaanaysaa mana helaysid maalintaas cid ku gargaarta saas daraadeed xuquuqda waxa lagu ilaashadaa si wadar ah lagu ilaashadaa si wada jir ah lagu dhowrtaa maaha in la isku fiirsado waxaan bogaadinayaa in allaale intii ka qayb qaadatay arintaas ayada ah difaacday dulmigii loo geystay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ka dhiidhisay go'aankii oo laf lagula tilmaamay in ay yihiin argagixiso waxaan kaloo rabaa halka inaan kala hadlo madaxdii Soomaaliyeed ee go'aankaas gabood falka ah sumcad dilka ah qaadatay fursad ay haystaan shacabka Soomaaliyeed ku hor yimaadaan oo ay ka cudur daartaan oo ay ka raali geliyaan shacabka Soomaaliyeed Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax iyo ururkii uu ka tirsan yahay ee jabhadda wadaniga dib u xoreynta Ogaadenya oo lafba inay ka raali geliyaan fursad bay u haystaan Abwaan Gaari wuxuu yiri gafka bashar baa u tahay gobba ka garaabta khalad go'aankaas asaga ah taladaas ayada ahna waxaan u jeedinayaa dadkii go'aankaas mugdiga ah ee faash xun qaatay hadii ay dhici weyso waxaan ka codsanayaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa inay si rasmi ah cudurdaar u siiyaan Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax iyo ururka ONLF cudurdaar rasmiyana oo ka soo baxo xukuumadda si aan u raali gelino walaalaheen aan u raali gelino shacabka Soomaaliyeed aan uga dhaqno aabtii iyo wixii magacooda lagu sameeyay intaba aad iyo aad ayaan inku mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh